ma aha dadka nolosha ku guulaystay inay u heleen saami ama hibo guushaas ay gaareen, balse waa howlkarnimo iyo dadaal kadibna ay noqotay guusha hadafkooda. waxaan kugula wadaagayaa fiidiyogan 3 sababood ay u guulaysan waayeen dadku meel sarena u gaari waayeen. kow, fulin la'aan, meel marin la'aan. waxay haystaan qorshayaal cad laakiin nasiib darro waxaa ku adag fulinteeda iyo samaynteeda. inaad dejisato qorshe iyo xeelado waa muhiim, laakiin fulinta xeeladaas iyo qorshahaas ayaa wax walba ka muhiimsan. dadka badankood waxay leeyihiin afkaaro iyo aragtiyo aad u wanaagsan una qurux badan, halka halyeeyadu ay leeyihiin fulin aad u weyn. kumanaan kun oo afkaar wanaagsan aad haysato kaama dhigayaan mid guulaystay, balse hal fikrad aad si wanaagsan u fulisid ayaa bedeli karta noloshaada oo idin. halkii aad fikradahaada u sharixi lahayd dadka, diiradda saar fulinteeda. wax walba waa natiijada fulinta istaraatiijiyad cad. yool kastana waa la gaari karaa haddii fulinteeda la sameeyo. riyo aan fulin la socona waa uun dhalanteed. 2, cabsida ama ka baqida fashilnimada. halka shay oo riyo walba ka dhigaya mid aan macquul ahayn in la gaaro waa cabsida laga qabo guuldarrada. guuldarradu ma aha mid ka soo horjeeda guusha, waa qayb ka mid ah guusha. marnaha ka xishoon, hana ka cabsanin inaad wajahdid guuldarrada. waxay dhisaysaa awooddaada iyo karaankaaga. ha u ogolaan in cabsida guuldarradu kaa joojiso kaana hor istaagta aayahaaga. guuldarro la'aan guul ma jirto. 3, joogtayn la'aan. joogtaynta ayaa ka muhiimsan dhammaystirka. guushana kama timaado howl aad samayso marmar, laakiin waa waxaad joogto u qabato ayaa miro dhalaya. guushu ma ahan dhammaadka, guuldarraduna ma ahan wax halisoo ku dilaya. waa geesinimo kugu riixaysa inaad hore usii wado wixii aad bilowday. muhiimna maaha inaad xisaabisid maalmaha ee u daa ayaamuhu ha ku xisaabiyaan adiguye. waxaan idinka tegayaa dhammaantiin fi amaanillah. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.